maayarka magaalada Gabiley Aamin Cumar Cabdi ayaa xadhiga ka jaray afar xafiis oo loogu talagalay inay daboolaan baahiyihii bulshooyinka ay u iman jireen dawladda hoose ee degmadaasi Gabiley. Xafladda xadhiga jarka ayaa waxa kala soo qayb galay xogayaha dawladda hoose ee degmadaasi Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakar, qaar ka tirsan golaha deegaanka ee degmadaasi Gabiley iyo gudoomiyeyaasha afarta xaafadood ee magaaladu ka kooban tahay. Maan mas'uuliyiintii halka ka hadashay hadaladoodii kamid ahaa. waxaynu joognaa oo aynu soo gabagabeynaa hawshaynu saaka bilownay ahayd inaynu furno oo aynu si official u furno xafiisyada aynu u samaynay afarta waaxood ee magaalada Gabiley. runtii waxay ka mid tahay waajibaadka golaha deegaanku ay u hayaan dadweynaha degmada Gabiley. golaha deegaanku iyagoo ka duulaya baaxadda ay degmadu leedahay iyo culayska yaala waxay hore isula garteen in magaalada afar xaafadood loo sameeyo. afartii xaafadood xadkooda iyo magac bixintoodaba runtii goluhu hore u ansixiyay. xaafad la yiraahdo Wadajir oo aynu hadda joogno, xaafadda la yiraahdo 18 May, xaafadda la yiraahdo New Gabiley iyo xaafadda Laagbarako. afartaa xaafadood ayay ugu talagaleen golaha deegaanku inay magaalada Gabiley u qaybsanaato. maanta afartii xaafadood adeegii loogu talagalay iyo ujeedadii laga lahaa runtii hirgelinteedu u joognaa. waxaan u magacoonay gudoomiyeyaal afarta xaafadood runtii gudoomiyeyaal ka noqon doona oo raggii waaya aragga ahaa. maanta waa bishii 16 bishii 7 2016 waxaan xariga ka soo jarnay oo xafiiska u dambeeyay joognaa xafiisyadii ay yeelanayeen xaafadaha magaalada Gabiley annagoo hadaba ka duulayna nidaamka guddoonsiinta ee ay Soomaaliland qaadatay ee ku shaqeyso annagoo ka duulayna go'aankii golaha deegaanka ee afarta xaafadood ugu qaybiyeen magaalada. waxaanu soo furnay maanta afartii xaafadood oo loo xafiisyadoodii oo qalabkoodii iyo shaqaalihii ka shaqeynayayba ay goobjoog u noqonay in la furo afartii magaalo ama afartii waxa weeye xaafadood ee uu goluhu hore ugu ansixiyay master plan-kii loo sameeyay in maanta hawshiisa ay dhammaystiran tahay. aad baan ugu mahadnaqayaa guddida fulinta runtii hawshaas. gobolka degmadeena waxaan leenahay dadkii 24 saacadood imanayay gobolku inay halkaa yimaadaan degmada imanayay oo waaxaha uga baahido 18 May maxay Laagbarako, New Gabiley iyo Wadajir oo tanimkan joogna ugu dambaysa ayaa waxa la furay xafiisyadoodii oo complete halkaas oo hawluhu ay ku fududan doonaan shaqaale iyo madax loo sameeyay halka gudoomiyeyaal halkaasi ay insha Allah taala ku fududan doonaan. Waa Cabdi Cabdilaahi Daahir, telefishinka caalamiga ee Somali Channel.